agaasimihii guud ee madaxtooyada oo runtii ina kala soo qayb galay madaxweynihiina waa ka cudur daartay oo magaranaysa uu iman kari waayay marka dee mar haddii inala joogo agaasimihii guud waynoo ku dhantay runtii waxaan jecelahay halkan inaan idinka sheego marka koowaad ardayda qalin jabisay waxaan idinka sidaa runtii salaan iyo ducada madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii aad u jeclaa inuu ka soo qayb galo xafladda qalin jabinta jaamacadda Burco hase yeeshee arrimo jira awgood maaragtay iyo hawlaha oo ku badnaa waxa isku beegmi waayay waqtigii jaamacaddu graduate garanaysay la qalin jabinayay iyo waqtigii madaxweynuhu uu inoo iman lahaa laakiin waa idin soo salaamaya waana idin soo ducaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland habeennimadii xalay wuxuu soo saaray war-saxaafadeedkaas oo u dhignaa in aan lagu marti qaadin jaamacadda Burco mas'uuliyaddaas oo dhan ay dhakada ka saaran tahay mas'uuliyiinta jaamacadda arrinta maxaad kaga jawaabaysaa arrinta madaxweynaha uu afayeen ku soo xigtay waxa weeye runtii waa dhab weeye madaxweynaha laguma casuumin waana ka raali gelinaynaa madaxweynaha in lagu eedeeyo inaanu iman munaasabadii qalin jabinta arrintuna waxay ahayd hadii goorda channel baa la isu soo mara annaku toos yani line ministeriga waa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ama sayniska waxa weeye horta qoladaas aanu wargelinay qoladiina de way yimaadeen cidii karaysa way yimaadeen war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliland raali gelin ka bixinayo ka qaybgelid la'aanta aanu ka qaybgelin xafladii qalin jabinta jaamacadda Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo maalintii shalay ahayd ee ay taariikhdu ahayd 6dii bishii 9aad 2018 ka qabsoontay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer war-saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay inaanay xukuumaddu cid u wakiilan inay ka qayb gasho xafladda qalin jabinta jaamacadda Burco iyadoo lagu sheegay in agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo xafladda ka qayb galay aanay madaxtooyada Soomaaliland dirsan isla markaana aanu wakiil u ahayn ee uu muddooyinkii u dambeeyay arrimo shaqadiisa qusaysa uu joogay gobolada bariga Soomaaliland waxaan war-saxaafadeedku u dhignaa sidan waxaan ardayda iyo waalidiinta u cadaynaynaa haba yaraatee inaanay jirin cid madaxweynaha Soomaaliland soo gaarsiisay martiqaadka xafladda qalin jabinta jaamacadda Burco ee xarunta gobolka Togdheer sidaa awgeed waxaan u sheegaynaa cid kasta oo filaysay inuu madaxweynuhu ka qayb galo munaasabaddan qalin jabinta ardaydaasi inaan madaxweynaha soo gaarsiinin martiqaadka qalin jabinta jaamacadda Burco oo mas'uuliyadda martiqaadkaasi ay saarnayd maamulka jaamacadda martiqaadyada jaamacadaha dalku u fidiyaan madaxweynaha ee ka qaybgalka munaasabadahooda waxa lagu wargeliyaa maalmo ka hor waxaana mas'uuliyadda qaladkaasi dusha ka saaran yahay maamulka jaamacadda Burco iyaga oo aan ayagu martiqaadka munaasabadan aan soo gaarsiinin madaxweyne Biixi ugu dambeyntiina wuxuu madaxweynaha Soomaaliland ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Burco ee gobolka Togdheer u dirayaa hambalyo bogaadin iyo duco ardaydan oo ahayd dufcaddii 8aad ee ka qalin jabisa jaamacadda Burco